waxaan wanaagsan daawadayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada qayb ka mid ah barnaamijka muuqaalka ee VOA ka imaanaysa magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota. barnaamijka waxaa marti ugu ah garyaqaan Cabdiwaaxid Qalinle oo ka mid ah garyaqaanada Soomaaliyeed ee ku dhaqan gobolka Minnesota. garyaqaanka ayaa waxaan isla soo qaadaynaa oo falanqayn doonaa go'aankii maxkamadda sare ee Mareykanka ka soo baxay ee lagu taageeray xayiraadihii madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu ku soo rogay wadamo muslimiin oo Soomaaliya ku jirta. Cabdiwaaxid Qalinle oo barnaamijka marti ku ah ayaan jeclahay arrimahaas inuu ila falanqeeyo. Cabdiwaaxid soo dhaw. mahadsanid maxamuud, adiga iyo daawadayaasha iyo dhageystayaasha qiimaha badan ee VOA ba aad iyo aad baan idin salaamay. adigana waqtiga aad baan kaaga mahadnaqaynaa. dabcan go'aan aad loo sugay baa ka soo baxay maxkamadda sare waddanka Mareykanka, khaasatan wadamo badan oo muslimiin oo Soomaaliya ay ku jirto ay aad uga sugayeen. dadkeena reer Minnesota dabcan aan ka midnahay dadka ka warsugay go'aankan haddii aad macnayso maxkamadda sare ka soo baxay madaxweyne Trump ay ku taageertay maxkamaddu. maxamuud, sidaad sheegtay go'aankan wuxuu ka soo baxay maxkamadda ugu sarreysa dalka Mareykanka oo sida Soomaalidu tiraahdo madax meel ka sarreysa ma jirtay, waa maxkamaddii ugu sarreysay. go'aankan wuxuu ahaa go'aan aad loo sugayay, laakiin wuxuu noqday go'aan lama filaan ah. aad baa loo sugayay sababtoo ah waxa aan aad iyo aad looga muran weyn uu ka jiray markii hore. madaxweyne Trump ma ku guuleysan doonaa xayiraadan isdaba jooga uu soo rogay mise maxkamadda ugu sarreysa dalka ayaa hor istaagi doonta. lama filaan buu noqday oo dadku intooda badan waxay odorosayeen ama ay filayeen in uu go'aanka maxkamadda sare burin doono xayiraadaas. tiina ma dhicin. marka run ahaantii waxaan oran karaa waa maalin aniga shakhsi ahaan markaan eego mugdi ah oo taariikhda Mareykanka ceeb ku noqon doonta, gaar ahaan waaxda garsoorka. marka aynu ka hadlayno saameynta uu yeelanayo iyo dadka muslimiinta ah waliba Soomaaliya dabcan iyada aad noo qusaysan hadaynu si gaar uga hadlano sharcigani waxyaabaha uu diidayo ama uu ogolaanayo madaxweynaha maxay sideedaba madaxweyne Trump markii ololaha doorashada uu ku jiray waxyaabaha uu ku tartamay waxa kamid ahaa in gabi ahaanba uu mamnuuco soo galitaanka dadka muslimiinta ah. ma qarsanin hadalkaasi, mana kormarin, si toos u sheegay oo uu abaaray. markii uu madaxweynaha noqday waxyaabihii uu u horeeyay ku dhaqaaqan waxa kamid ahay inuu xayiraadahan soo rogo. xayiraadan waxay taabanaysaa dadka wadamo dhowr ah oo muslina. marka hore muslim bay ahaayeen, hadda laba dal oo aan muslim ahayn oo Venezuela iyo North Korea lagu dhex daray. dadka wadamadaas ka soo jeeda ama jinsiyadaha dalalkaasi haysta in loo diido inay soo galaan dalka Mareykanka oo macnaheedu tahay inaanay heli karin dalku galka ama wax loo yaqaano fiisayowga. waxay si gaar ah u taabatay dadkii fiisooyinka qaraabadooda u xireeyay. haddii qof maalan ilmihiisa wax u xireeyay, xaaskiisa ama walaalihii ama waalidkiisa, dadka aad iyo aad bay u taabatay. anigu lawyer ahaana waxaan aad iyo aad uga warqabaa anigoo boqolaal Soomaaliya matala dad fara badan oo aad iyo aad u tiro badan oo intay interviewyadii mareen kiisaskoodii aanu dhamaystiray kadibna markii fiisaha la siin lahaa la yiri laydima siin karo amar madaxweyne ayaa soo baxay oo diidaya maadaama jinsiyadaadu Soomaali tahay in fiisaha lagu siiyo. arintaas marka la horgeeyay maxkamadda sare. maxkamadda sare marka waxay runtii aad u falanqaysay madaxweynaha dalka Mareykanka ee madaxweyne Trump awood ma u leeyahay in uu siyaasad noocaas abuuro ama dhaqan geliyo. maxkamaddu marka waxay tiri waxa madaxweynuhu dastuurku awood u siinaya inuu laba arrimoodba ka soo saaro xeerar. arrimaha dibadda in uu run ahaantii si toosa uu xeer hoosaad ka soo saaro, iyo arrimaha immigrationka ama dadka soo galeytiga ah. waxayna sheegeen in go'aanka xayiraadu uu si buuxda uga mid yahay awoodaha madaxweynaha ee uu labadaa waaxood uu runtii ku jirin karo ama uu siinayo. Cabdiwaaxid, marka waxaad ka hadashay in dad fara badan oo waddankan soo geli lahaa oo fiisayaal xaraystay filayay dadkooda inay yimaadaan uu hor istaagayo. haddaynu soo qaadano marka Soomaalida oo kale dadka qaxootiga xeryaha qaxootiga laga soo qaaday dadka xaasaskooda u dacwoonay ama haday gabadho odageeda u dacweynayso ama wiilku uu gabadha uu guursanayo u dacwoonayo, dadka caruurtooda u dacweynay, dhammaan dadkaas oo dhan sharcigan wada mamnuucaya inay waddanka yimaadaan. mamnuucan maxyiraadda madaxweyne Trump saddex heer bay soo martay. heerarkii hore, heerkii koowaad iyo kii labaadba way mamnuucayeen arrimahaas oo dhan. laakiin midkan u dambeeya hadda oo ah midka maxkamaddan ugu sarreysa gaaray, dadka qaxootiga ahi kuma jiraan. wixii qaxooti ahaan xaalkoodu yahay kuma jiraan ilaa hadda.
waxa dadka qaxootiga waxa loo soo saaray iyaga hanaan ka duwan xayiraada oo waxa la yiri baaritaan adag ha lagu sameeyo baaritaan aad u qoto dheer run ahaantina anigu lawyer ahaan waxaan goobjoog u ahay in ay uun iska tahay xayiraad waayo ilmo yar oo 2 jir ah 3 jir ah baaritaan sanado soconaya oo la leeyahay farihiisa la soo baaraya iyo baaritaan baa lagu sameynaya waynu naqaanayo wax arintaasi waa marmarsiyo weey marka qaxootiga iyaga baaritaan baa la yiri laakiin xayiraad lama oranin dadka laakiin sida gaarka ay u saameynayso waxa kamid ah dadkii fiisooyinka xiraystay saad sheegtay waalidiintii qaraabadii ilmihii xaasaskii dadkii noocaas ahaa iyo dadkii runtii dalxiiska ku imanaya dalka Mareykanka oo ah dad Soomaaliyeed oo laga yaabo inay fiisooyin soo helaan ama ganacsatada noqdaan ama siyaasiyiin ha noqdaan marka runtii dadka Soomaaliyeed aad bay u tahay dadka diblomaasiyiinta ama siyaasiyiinta midalan dawladda ku jira oo kale dawladda Soomaaliya kale dabcan waxaan ognahay Mareykanka Soomaaliya waa aqoonsan yahay safaaradda halkan ku leeyihiin diblomaasiyiinta oo kale dalkan soo booqanaya iyaga laftooda fiisihooda sidoo noqonaya in kasta oo diblomaasiyiinta la filaya in laga reebo oo dawladaha dhaqankooda ay tahay inay diblomaasiyiinimada tixgeliyaan haddana waxaan qiyaasayaa maadaama awoodan madaxweynihii hadda si dhab ah loo siiyay oo maxkamadii xataa u qireen in xataa diblomaasiyiinta laftooda ay saameyn doonto arrintani ayna noqon doonto haddii xataa si cad aan loo qorin oo xeerka loogu qorin askariga xuduudka taagan iyo sarkaalka Mareykanka ay safaaradda Mareykanka jooga ee fiisaha bixinaya isaga laftiisu inuu diblomaasiga laftiisa uu qashqashaado oo uu ku rabana siiyo ku rabana u diido way noqon kartaa marka runtii arrintan saameyn weyn bay leedahay cid ka badbaadaysaana oo Soomaaliya way iska yartay haddii aad tahay qof ku dhaqan wadan kale tusaale Canada oo kale ama Ingiriiska oo kale waad Soomaali asalkaagu yahay باسبور لكن هذا يستوى ضماداي European Union باسبور كذا كله أرنت المكسمين سا حيرات يودن بيسي ما سامينين لكن وحى آدي آد أن أفلا يا هذا هدي بقفك باسبور كيس الصومالية كقرن تاعي أو أنت بدن دلالك أجنبي جاهي قفك وحي كقرن باسبور كودن الصلاحان وكسوتشي ذو أما وكدش ها مركا وحن فيلا يا هدي ساسي أي شرطة وقفك سي حدود كمريكان كسو استاجو إن سجل لفتيسا أن لسكوها لينكر إنه صوغ ليون لهوبين مركا إن كسوين التوس وقعدين حيرات يودن بيسي لكن وحن آدو فيلا يا إن حتى حيرات دي حدا وسيب لارين دونه ستة سنة وقدر سنة عندما أودي سي وقت محل قبل كرا الرنتن طبعا وسيدات شكتي مدح مال كسر رسول الله صلى الله عليه وسلم محكمة السلام مريكا جاء قوان كسو صارتي ميي جري كلان ودوين كلا أو فرن وأرنتن وحلوجا بدلي كرو أما مدحوينها مريكا لفتي سلوه قنعين كرو إنه أرنتن أولي مريو سكلا لواي أرنتن أرنتن لو قيود بانو كلا صاريا ميدي waxa way dadkii fiisooyinka u xareysnaayeen oo sidaan sheegay adduunyada daafaheeda jooga oo Soomaali ah oo ilmahoodii iyo xaasaskoodii cid walba u dacwoonay qaraabadoodii dadka waxaan u soo jeedinayaa in ay si dhaqso loo yiradoodii ula xiriiraan oo kaysaskoodii dib loo fiiriyo haddii wayfaro ama cafisyo loo dalbi karana loo dalbo taasi waa meel oo qofkii kiiska xanibnaa ama kiis u socday inuu si dhaqso arrintiisii dabagal ugu sameeyo talabaad dadka green cardada haysta ee iyagu wadanka Mareykanka gudihiisa jooga ee raba inay safraan waxaan oran lahaayeen safarka hadda lagu degdegin bal inta la eegayo madaxweyne Trump wuxuu yeeli doono because ma ogin ninkii caawa faraxsan yahay Twitterkii wuxuu ku soo qorayaa waan guuleystay waana nin looga bartay inuu fudud yahay marka hadii uu berita soo saaro travel ban cusub waxa laga yaabaa adoo maqan inuu ilaa dadka green cardkana hal lagu daro marka waxaan oran lahaa bal qofkii safar daruuri ah aan u baxaynin inuu xooga cagta dhigo inta maqan in wixii soo gali karaay ee green cardada haysata ay iska soo galaan laakiin qofkii dan wata ee dantiisa wata ilaa hadda wax saameyn ah arintaasi kuma laha taasi waa mid qaybta kale waxa runtii looga hortagi karaa arintani garsoorkii way soo dhamaatay baad moodaa oo saad sheegtay maxkamaddu sareysay weey arintan siyaasad bay ku soo ururaysaa iyo saameyn siyaasadeed sida awgeed waxaan labaan u kala saarayaa iyadna kow shacabka Soomaaliyeed ee Mareykanka ku dhaqan waxa looga fadhiyaa inay si dhaqso ula xiriiraan dadka iyaga ku matala siyaasadda haday yihiin nimanka iyo gabdhaha Congress-ka ku jira iyo kuwa Senate-ka ku jira iyo kuwa runtii siyaasiyiintaba ah oo u sheegaan saameynta bili aadanimo
ee kala qaadista iyo kala xayiraadda ilmaha iyo aabihii iyo waalidkii iyo dadkii ilmihiisii la kala xayirayaay inay ka soo horjeedo hanaanka iyo runtii Mareykanka waxyaabihii mabaadi'dii lagu aasaasay taasi waa meel oo siyaasad ahaan in si buuxda looga qayb qaato waraaqa la qoro xafiisyada la tago mudaharaado la dhigo codkeena la maqlo waa meel meesha labaad waxa weeye dawladda Soomaaliya ee uu hogaanka ka yahay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Khayre waxa looga fadhiyaa iyaguna in ay si toos ah wada shaqayn ula yeeshaan dawladda Mareykanka wada hadal la furaan waxaad ogaataa dawladda waxa jiray dhowr ah oo xayiraadihii hore ku jiray sida dalka Suudaan oo kale sida dalka Ciraaq oo kale oo runtii dawladahooda iyo xukuumadahoodu ay Mareykanka la xaajoodeen markii dambana laga saaray arintu yaa nafsi bay taagan tahay muslim oo dhan lama wada xanibin muslim Soomaali ugu horeysan la xanibay Soomaaliya marka waxa looga fadhiyaa in madaxdeedu ay runtii fahamto wayna fahamsan yihiin baan filayaa Mareykanku isaguna dambu inaga leeyahay oo Soomaaliya ka leeyahay inaguna dadaynu u fulinaa saaxiibtinimo soo jireenina waa jirtay marka arrimaha bal in la farageliyo oo Mareykanka la xaajoodo anagu loo yar ahaan hadaan nahay dadka gudihii jooga oo xeerkii iyo sharciga Mareykanka fahamsan waxaan si toos ah uga shaqayn karaa xukuumadda Soomaaliya inaan u tusno meelaha ay ka gali kartaa sharci ahaan sidoo kale si buuxdana kiiskeena iyo aragtideena loogu soo bandhigi karo dalka Mareykanka marka arintu waa arin siyaasadeed bay ku soo ururtay saameyn siyaasadeed dawladda Soomaaliya mas'uuliyad weyn baa ka saaran waayo shacabka Soomaaliyeed ee halka degan dhaqaale laxaad leh oo aad iyo aad weyn buu u diraa dalka Soomaaliya hadii la weeqo oo ninkii mesela xaaskiisa iyo ilmihiisu ka maqan yihiin hadii la yiraahdo laguma keenayo de Mareykan maxaa iyaa loo oranayaa bari waa isaga guuraya waxa laga yaabaa dad badan oo income dalka soo gelinaya in saa uga guuraan واتحد عبد الواحد قليل أدو المصنطة هذا مدن محمد واتحد داود يالكاسي وحاو هاقريقان عبد الواحد قليل له ويلف لنقين يقوانكي محكمة السرية مريكا كسو بحي كتاقرتي حير هذه مدحوينها مريكا دونالد ترامب وكسو رغي ودما مسلمين أو الصوماليين أكو جرتي داود يالتاني كلان دنبه ومحمود مسعد داود السدائي نبت قليل